Suudaan iyo Israa'iil oo isweydaarsaday xogo sirdoon oo xasaasi ah. Hogaamiyaha militariga ayaa sheegay in xogo sirdoon oo dhexmaray Tel Aviv iyo Khartoum ay gacan ka geysteen soo qabashada dagaalyahano looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin falaagada Suudaan. Hogaamiyaha militariga Suudaan General Abdel Fattah al-Burhan ayaa hadal uu sheegay waxa uu meesha ka saaray hanjabaadaha reer galbeedka ee cunaqabataynta xiriirka la leh mudaharaadyada ka socda dalkaasi. waxa kale oo uu ka hadlay arrimo dhexmaray Suudaan iyo Israa'iil oo uu ku sheegay in ay ahaayeen kuwa amniga lagaga wada hadlay balse aanay ahayn arrimo xiriir la leh siyaasadda. Burhan ayaa wareysigii ugu horeeyay ee uu siiyay telefishinka qaranka tan iyo afgembiga ku sheegay in Washington ay helayso xogo aan sax ahayn. waxa uu sidoo kale bogaadiyay xiriirka uu la leeyahay Israa'iil isagoo oo sheegay in wada shaqayn sirdoon oo dhexmartay labada dhinac oo hore cadow u ahaa ay gacan ka geysatay soo qabashada dagaalyahano looga shakisan yahay dalkiisa. Mudaharaadayaasha ayaa wadooyinka jaray muddo bil ah tan iyo markii uu dhacay afgembigii military ee uu hogaaminayay General Burhan bishii Oktoobar ee sanadkii hore, kaasi oo lagu soo afjaray wada shaqayntii militariga iyo rayidka. waxaa la sheegay in la rabay in lagu horseedo doorasho dimuqraadi ah, tallaabadaasi oo sidoo kale si weyn looga cambaareeyay beesha caalamka. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ay eegayaan fursadaha ay kaga jawaabayaan dilka ugu yaraan 79 qof oo mudaharaadayaal ah marka loo eego tirada dhimashada ee ay dhakhaatiirtu sheegeen iyo in la farageliyay dawladda uu rayidku hogaamiyo. Cunaqabataynta iyo hanjabaadu faa'iido ma leh, ayuu Burhan ku yidhi wareysiga, isagoo oo intaasi ku daray in uu isagu qaadayo mas'uuliyad shakhsi ahaaneed ee baadhitaanka dhimashada dibadbaxayaasha iyo in 5 ilaa 6 baadhitaan ay hadda socdaan. waxa uu sidoo kale sheegay in ay jiraan tuhunno ku saabsan ku lug lahaanshaha kooxaha dibadda isagoo oo aan faahfaahin. Suudaan iyo Israa'iil waxay xiriirkooda hagaajiyeen sanadkii 2020 kaasi oo qayb ka ahaa heshiisyo taxane ah oo uu Mareykanku garwadeen ka ahaa oo dhexmarayay Israa'iil iyo 4 wadan oo Carab ah. labada wadan ayaa tan iyo markii ay sameeyeen xidhiidh amni iyo mid sirdoon oo ay ku kulmeen mas'uuliyiintoodu inta badan safarro aan la shaacin. madaxa golaha talada haya ee golaha sare ayaa sheegay in ay isweydaarsiga sirtu ay u suurtagelisay Suudaan in ay burburiso oo ay xidho kooxo hubeysan oo looga shakisan yahay in ay wax u dhimi karaan ammaanka Suudaan iyo kan gobolka. Israa'iil ayaa ka aamustay afgembigii military ee bishii Oktoobar iyo qalalaasaha ka dhashay afgembigaasi, taasi oo muujinaysa in ay doonayso in ay sii wado xidhiidhka tooska ah ee ay la leedahay Suudaan. Saraakiisha Suudaan iyo Israa'iil waxay isweydaarsadeen booqashooyin aan la shaacin toddobaadyadii la soo dhaafay. dhowaan ayay ahayd markii wafdi ka socda Suudaan ay booqasho ku tageen Tel Aviv toddobaadkii hore, kadib markii bishii January ay booqasho Khartoum ku tageen saraakiil ka tirsan Israa'iil oo ay ku jiraan saraakiisha sirdoonka Mossad. bishii Oktoobar wasiirkii cadaaladda ee Suudaan xilligaasi iyo wasiiro ka tirsan wasaaradaha Israa'iil Idan Roll iyo Idawi Faraj ayaa shir daahfuran oo naadir ah ku yeeshay Abu Dhabi. kor u qaadista xiriirka Israa'iil ayaa Suudaan u ogolaanaysa inay dib ugu noqoto beesha caalamka kadib 20 sano oo ay go'doon ahayd. waqtigaasi oo uu Suudaan hogaaminayay hogaamiyihii hore Umar al-Bashir. Suudaan ayaa mar ka mid ahayd dalalka Carabta ee ay sida aadka u xifaaltamaan Israa'iil. waxa ay martigelisay shirkii caanka ahaa ee Carbeed kadib dagaalkii Bariga Dhexe ee 1967 kaasoo ay 8 wadan oo Carab ahi wacad ku mareen in aanay weligood nabad la qaadan doonin Israa'iil. wararka kalena waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo sheegtay inay qarax miino ku dileen 15 askari oo ka mid ah ciidamada Kenya. wararka ka imanaya deegaanka Lamu ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa sheegaya in halkaasi qarax miino oo nooca dhulka lagu aaso ah isla markaasina meel fog laga maamulayay lala eegtay kolanyo ka tirsan ciidamada Kenya. kolanyada gaadiidka ee ciidamada Kenya ee qaraxa miinada lala eegtay ayaa ku sii jeeday tuulada Mangai oo ku dhow magaalada Lamu. waxaana la sheegay in gaari ay ciidamada Kenya saarnaayeen oo kolanyada ka tirsanaa uu qaraxu haleelay. qaraxa miinada ayaa la sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira uu ka soo gaadhay ciidamada Kenya, inkasta oo aan la xaqiijin tirada rasmiga ah ee ku waxyeelowday. waxaana qaraxa kadib dhacay rasaas badan oo ay rideen ciidamada qaraxa ka badbaaday. Al-Shabaab oo sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi miinada ah ayaa sheegtay in ay ku dhinteen ilaa 15 askari oo ka mid ah ciidamada Kenya, kuwaasi oo saarnaa gaari cabdi bila ah oo ay miinadu ku qaraxday.
ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka saraakiisha Lamu iyo laamaha amniga ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo ku saabsan khasaaraha ka soo gaaray qaraxa miinada ee haleelay mid ka mid ah gaadiidka ciidamada Kenya. deegaanada dhaca gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxa ku soo kordhayay qaraxyada lala beegsanayo ciidamada Kenya, waxaana inta badan halkaasi ka dhaca qaraxyada nooca miinada ah iyo weerarro dabagal ah oo kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan deegaanadaasi. dhanka Soomaaliyana Qatar ayaa Soomaaliya u horumarinaysa garoomada diyaaradaha. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Durraan Axmed Faarax ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda Qatar u qaabilsan Soomaaliya Xasan bin Xamse Haashim. labada mas'uul ayaa kulankooda diiradda ku saaray sidii loo xoojin lahaa iskaashiga u dhaxeeya labada dowladeed ee Soomaaliya iyo Qatar. sida uu shaaciyay Durraan Axmed Faarax, waxaan ka wada hadalnay iskaashiga labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa, ayuu yidhi wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inuu safiirku ballan qaaday in ay Qatar ka qayb qaadan doonto horumarinta garoomada diyaaradaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka. dhinaca duulimaadyada waxaan isla qaadanay horumarinta garoomada dalka iyo kor u qaadista kaabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliya, ayuu yidhi wasiir Durraan Axmed Faarax oo uu mahad celiyay dowladda Qatar taageerada ay la garab taagan tahay shacabka iyo dowladda Soomaaliya. Qatar ayaa 5tii sano ee la soo dhaafay taageerisay dowladda uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaanay dalka ka fulisay mashaariic kala duwan. ballanqaadka cusub ee Qatar u samaysay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku soo aadaysa xilli haatan Soomaaliya ay ku jirta marxalad doorasho iyo xilli kala guur ah, iyada oo dhanka kale ay ka jiraan abaaro aad u daran oo dad iyo xoolaba saameeyay. qaramada midoobay ayaa sheegay in 5 ka mid ah shaqaalahooda Jimcihii lagu afduubay koonfurta Yemen xilli ay ku sii jeedeen magaalada caasimadda ah ee Cadan. afhayeen u hadlay qaramada midoobay oo lagu magacaabo Russell Kiki ayaa sheegay in howlwadeenadooda lagu afduubay gobolka Abyei ee wadankaasi. Russell Kiki ayaa tilmaamay in ay hadda ku rajan weyn yihiin in maamulka aagaasi ka arrimiya ay dib xorriyadooda ugu soo celiyeen saraakiisha qaramada midoobay ee la afduubay. dhanka kalena diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee F-22 ayaa shalay gaadhay saldhig militari oo ku yaala dalka isku tagga Imaaraadka Carabta kadib markii uu Imaaraadka Carabtu duqeymo aan hore loo arag kala kulmay dagaalyahanada Xuutiyiinta ee ka dagaalama gudaha Yemen. Imaaraadka Carabta ayaa kaalin muuqata ka ciyaarayay dagaalka lagu hoobtay ee sanadihii dhawaa ka socday Yemen, isagoo oo qayb ka ahaa howlgallada Carbeed ee la dagaalanka jabhadda Xuutiyiinta ee ay taageeraan Iran. Yemen ayaa waxaa sanadihii u dambeeyay ka socday dagaalo culus oo u dhaxeeyay kooxda Xuutiyiinta iyo dowladda Yemen oo garab ka helaysay isbahaysiga uu horkacayay dalka Sacuudigu. dagaalkan ayaa sababay dhimashada kumanaan shacab ah iyo burbur xoogan oo Yemen dib u dhigay tan iyo markii ay Xuutiyiintu isku ballaadhiyeen qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi.